وعربنا أصحابتنا شرفتنا إن لو وداقنا ورك صباح دقمنا موجود قبل شوية لدحى maamulka al-shabaab ee halkaas ka taliyo ayaa shalay iyo daraato iyo xalaba shir ku lahay degmada waxa la sheegay saraakiil sarsana inay meesha imaadeen waxaanu ku saabsanay shirkoodu khilaaf soo u dhaxeeya gudoomiyaha degmada iyo koox la shaqeysa waxaana ugu dambeyntii xilka laga qaaday gudoomiyaha degmadaas oo la oran jiray Arabay waxa lagu bedelay gudoomiye kale oo aan magaciisa rasmi aanan hayn balse magac badan oo soo gudbiyay waana gudoomiyaha deegaanka ah oo deegaanka u dhashay aad bayna dadka shacabka u soo dhaweeyay maadaama ay wali ay arkin gudoomiyaha deegaanka inuu degmada xilka qabto maadaama wixii ka horeeyay laga keeni jiray gobolka kale iyo degmooyin kale dad badan baan la hadalnay barigan wacanay waxay noo sheegeen gudoomiyuhu magacaaban yahay balse uu degmada imaan iyo inuu degmada waliba la magacaabo laakiin uu dhaweynaaso aan la magacaabo si aad u dhowdahay marka wixii wara oo ka soo baxay isugu tafatiraan halkan baad kala socod doontiin waxaan ka codsanaynaa share iyo like iyo comment na siisin fadlan bog YouTube ka Rungomi aad soo booqatiin aadna kala kicisiin boggan idinku waxaynu ku yahay walaalahayna qaali sharafta leh aad baan ku faraxsanahay inuu kan waxaan aagoon wax alaal wixii degmadaasi ka soo kordhay deegaanka horumarka in halkan aan ku soo daabac doono mar walba aad baan ku faraxsanahay markaad sheertiin like-in aragtaan